marka Soomaalida qurbaha yimaadaan halka ugu badan ee shaqo ka bilaabaan waa shirkadda caalamiga ah ee Amazon. Amazon waa shirkad bixisa fursad degdeg ah oo shaqo, balse sidoo kale leh caqabado u baahan in qofka shaqaalaha ahi uu ka gudbo. Amazon waa mid ka mid ah shaqaalaha shirkadaha ugu waaweyn caalamka oo fursad shaqo siiya malaayiin qof oo gudaha Yurub, Mareykanka, UK iyo xitaa dalka Canada. Xarumaha shirkadda sida Hamtu ee Vincent nawaaxiga magaalada Hamburg waxaa ka shaqeeya kumanaan shaqaale ka kala yimid dunida dacaladeeda. Soomaalida ayaana qayb muhiim ka ah shaqaalahaas. Shirkaddu waxay qof kasta oo shaqadoon ah siisaa fursad degdeg ah oo shaqo, xitaa haddii uusan aqoon luqadda dalka uu ku sugan yahay. Shaqaalaha cusub ayaa ku bilaabi kara tababar socon kara 1 ilaa 3 maalmood, taas oo u sahlaysa in si dhaqso ah xubin ugu noqdaan. Si kastaba ha ahaatee, caqabadaha jira ma yara. Haddii isfaham la'aan dhex marto maamulka iyo shaqaalaha ama shaqada la qabsigeeda ku adkaado, qofka si fudud ayuu shaqada ku waayi karaa. Sidaas darteed, barashada luqadda, fahamka nidaamka shaqo waa shuruudo muhiim ah oo shaqaalaha cusub looga baahan yahay. Cabdirashiid waa wiil Soomaali ah ku nool dalka Jarmalka kana shaqeeya Amazon Hamtu ayaa yiri, Amazon waxay noqotay fursad aan ku bilaabi karo nolosha cusub, balse luqadda Jarmalka markii hore aad ayay igu adkeyd. Waxaan ogaaday in haddii aan degdeg ula qabsado nidaamka iyo maamulka, aan heli karo fursad iyo xirfad barasho oo aan riyooyinkayga hore ugu sii dhisin karo. Maanta Soomaalida ku nool Yurub, UK iyo Waqooyiga Amerika, Amazon ayaa noqotay halka ugu badan ee shaqo ka bilaabaan marka ay dalka ku cusub yihiin, sababtoo ay tahay shaqo degdeg ah, dakhli wanaagsan iyo fursad mustaqbal wanaagsan oo qofka u horseedi karta inuu kor ugu sii dalaco jagooyinka sare. Warbixintan waxay muujinaysaa kaalinta shirkadda Amazon ku leedahay nolosha bulshada Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool. Fursad iyo caqabad isku dhafan, balse ah meel ay ka bilaabaan safarkooda cusub ee nololeed. Sheekada Amazon iyo Soomaalida qurbaha waa tusaale cad oo muujinaya sida hal shirkad u noqon karto albaab nolosha cusub lagu bilaabo. Laakiin su'aal ayaa weli taagan: ma fursad kaliya ayay tahay mise waa caqabad lagu tijaabiyo adkeysiga? Maxay yihiin sheekooyinka guusha iyo casharada laga bartay? Waxaan ahay Cabaas Cadde. Si aad u ogaato warbixino kale oo xiiso leh nolosha qurbaha iyo fursadaha ay Soomaalida la kulmaan, isoo raac oo follow garee si aan sheekooyinka kale kugu soo gudbiyo.